waxaan idin haynaa gabar tagsiilaha dabcan ma ahan arrin lala yaabo in dunida inteeda kale laakiin dalka Soomaaliya oo ay qaramada midoobay ku tilmaamtay inuu ka mid yahay dalalka ugu halista badan dumarka waa arrin la yaab leh. Caasha Maxamed waxa ay taksi ka wada magaalada Muqdisho, shaqadeeda geesinimada leh waxa ay qayb ka qaadan kartaa fahamka iyo isbeddelka bulshada. Maxamed Xaraare ayaa eegaya. waa 19 jir, waa hooyo kale caruur korsata. si ay nolol maalmeedka u hesho waxa ay ku shaqaysataa taxi. ma ahayn go'aan fudud in mihnada ay uga dhex shaqayso bulsho adag iyo dal ka mid ah dalalka ugu halista badan adduunka. inta yara waa jeclaa inaan gaari mar uun kaxeeyo laakiin shaqo ahaan ku shaqayn doono taas fikirkaas miga dhacsaneen laakiin shirkadan rakaab markay ku soo biirtay oo maxaa la oo dhanka caqabado kasta kiimaana aan jakimo oo safety ay tahay oo aan nafsi ahaanteeda ku haleyn karo taas waa ugu kaliftay maadaama gabdho badan aysan ku jirin ay tahay fursad shaqo oo yacni aan ka shaqayn karo markaas aan qaban karo maadaama anoo dumar ah safety-gayga la ilaalinayo taas waa ugu kaliftay muddo sanad ah gabadhan dhalinyarada ah ee magaalada Muqdisho ayay hadba gees ku dhex maraysay taksigeeda cad. jacaylka ay u qabtay wadista gawaarida ka sokow dan ayaa kaliftay. waxaa xoogsigeeda ku nool 2 caruur ah oo ay dhashay iyo hooyadeed. shaqada wadista tagaasida waxa ay inta badan Muqdisho u xiran tahay ragga. waa shaqo sidoo kale u nugul qaraxyada ka dhaca wadooyinka iyo isgoosyada magaalada. xisaabiyaha guud ee shirkadda Rikaab ayaa sheegaysa in shaqaalahooda gaaraya ilaa 2000 ay 3 kaliya dumar yihiin. sida ay sheegtay waa tallaabo wanaagsan. tagaasida hablaha dhankeeda in area ay ku yaraadaan waxa ay noqonaysan waxay security-ga xogaa in looga gamban jira laakiin Rikaab markay imaatay almost hablihii way ku najaxeen oo way isticmaalaan adeegii. Caasho maalintii waxa ay shaqaysataa ilaa $40 oo ay reerkeeda ku maarayso. macaamiishuna ammaan ayay dareemayaan. adeegan oo dhowrka bilood isticmaalay waa adeegga Rikaab. inkastoo rag ay ku badan yihiin waxa aad u jeclaalahay dumarka. marka dumarka waa safe way waqtigoodana aad ku imaanada dalbatid. horumarinta xuquuqda dumarka kama mid ah arrimaha safka hore ku jira siyaasadda dawladda Soomaaliya. xogtii ugu dambeysay ee soo baxday 2012 waxa ay muujinaysaa in dalku uu ku jiro 4 dal ee ugu hooseysa dunida dhanka adeegga iyo xil u sinaanta ragga iyo dumarka. Caasho waa wada taxi, laakiin waxa ay qayb ka qaadanaysaa isbeddelka guud ee bulshada iyo fahamka ku aadan kaalinta haweenka Soomaaliyeed. Maxamed Xaraare, BBC.